bulshada ku dhaqan degmada Godorka ee duleedka koonfureed ee magaalada Burco ayaa cabasho ka muujiyay seerayaal laga ootay deegaanada ku xeeran degmada iyo deegaamaysi lagu wado dhulka xoolo daaqeenka. bulshada kala duwan ee degmada Godorka oo u badan xoolo dhaqato ayaa waxay sheegeen inay dhibaato badan ku hayaan deegaanadan in la iska ootay xoolaha, isla markaana waxay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland ayagoo ugu baaqay inay wax ka qabato deegaamaysigan lagu hayo dhulka xoolo daaqeenka. dadweynahan kala duwan ayaa sidoo kale waxay taageereen go'aankii ay dhawaan ku baabiyeen guddiga nabadgelyada gobolka Togdheer deegaano tuulooyin iyo seerayaal laga ootay deegaankaasi. waa kuwan ayagoo arrimahaasi ka hadlaya. aanu mushtaki ka dhahay beera annaga iyo saqiirka yaga iyo kabiirka yaguba neef meelaanu ku sii dayna ma hayno. alladii ilaahay dad baa sheegtay riyaha yagii aanu liilbaan lagu iibinaya hana laga soo gaadho dawladda. waxaanu mushkati ka nahay beeraha iyo daaqeenka la oodayo dhulka waxa xumaynaya dhulka ee macnaha beeraha iyo cagafyada iyo wax alaale wixii magaalooyina mushkati baanu ka nahay haddaanu nahay dadweynaha deegaanka Godorka ee dadweynaha ee degan Godorka waxa aanu ka xunnahay haddii aanu nahay reermiyigii xoolo dhaqatada ahaa annaga cirkuun baa noo bannaan meel alaale meel kaloo noo bannaan maba jirto. meel aanu annagoo dee kiilka shanaad qabanno oo dee Soomaaliya iska tagna mooyaane meel aanu annagu xoolo daajino ma hayno. waanu diidanahay bacda iyo beeraha lagu xirayo dhulka ee xoolaha daaqooda lagu ilaaliyay ayaanu diidaynaa. ana la ka qabto ana la ka soo gaaro bacda iyo beerta. hawlihii qabsoomay ee xukuumaddu ay ka filisay deegaankan aad iyo loogu mahadnaqayaa. dadweynaha meesha ku nool waa aragtaan xoolaha gacanta ku haya hadalkooda waa maqlaysaan waana aragtaan dhibaatooyinkii soo food saaray xukuumaddu wax ka qabatay inta dambana iyadoo ka qaban doonta waxa la soo dhexgeliyay carqalado dhibaatooyin lagu beenaynayo waxqabadkii mushkiladna looga dhigayo iyo xamaasad iyo cambaarayn aan jirin oo been ah. yaabaha foosha xun leh ee dhibaatooyinka ee beeraha ee magaalooyinka ee dhuxusha ee bacaha taasoo shanta nabadgelyada iska kaashadeen gobolka ka taliya ee u xil saaran amniga iyo nabadgelyada iyo deegaanka. hawlihii ay ka fuliyeen aad iyo ugu mahadsan yihiin. kuwa beenbeenta ka sameeyayna waa qaar khaldan oo doonaya inay seerayaasha xaaraanta iyo deegaamada cusub ee xaaraanta aan bannaanayn ay sii wataan. dawladdana waxaanu ka codsanaynaa wixii ay qabatay way ku mahadsan tahay. cambaareynta loo soo jeediyana mid qabta maaha. Shaafici Maxamed Ibraahim, Telefishinka Somali News, gudaha magaalada Burco.